walaalayaal waxaan idinku salaamayaa oo idinku soo dhaweynayaa magaca Sayid Ciise Masiix waxaan maanta Ilaahay uga mahadinaynaa inaynu helno fursad kale oo aynu ereyga Ilaahay ku wada barano si aynu isu dhiirigelino si aynu isugu sheegno sida aynu Ilaahay u adeeci lahayn si aynu isu magaranaysaa wax isu barno maanta waxaynu baranaynaa midhaha ruuxa quduuska Bible-ku wuxuu inoo kala cadeeyay laba dabeecadood oo ay bini aadamku muujiyaan dad waxay ku socdaan damacyada jirka dadna waxay ku socdaan midhaha ruuxa quduuska waxaana ka muuqda midhaha ruuxa quduuska Bible-ka waxaa ku qoran qofka masiixa ah markuu masiix noqdo in uu Ilaahay ugu ballan qaaday uu soo galo qalbigiisa ruuxa quduuska kaasoo hogaamiya isaga maadaama uu ruuxa quduuska qofka hogaaminayo waxa ka muuqda midhaha ruuxa quduuska ama dabeecadaha laga arki karo qofka uu ruuxa quduuska ay hogaaminaya ama Ilaahay hogaaminayo midhaha jirku waxay lid ku yihiin midhaha ruuxa quduuska damacyada jirka ilaa iyo bilowgii bini aadanka waxa inagu ahaa mar walba cadow damaca jirkeena ama rabitaanka jirkeena kaasoo markasta ka geesa waxa Ilaahay inaga rabo haddaynu dib ugu noqono kaba soo qaad tusaale ahaan aadan iyo xaawo markii shaydaanku u yimi xaawo ee uu sheegay inay cuni kara geedkii ku dibin daabiyay inay cunto geedkii laga xaraameeyay Bible-ka waxa ku qoran Tawreedii waxa ku qoran bilowga cutubka 3 aayadda 6 waxa ku qoran oo markii naagtii aragtay geedkii in geedkii cunto ku wanaagsan yahay oo indhahana u roon yahay oo uu yahay geed caqli lagu yeesho ayay midho ka qaadatay oo cuntay ninkeedii la joogana waxbay ka siisay oo isagiina uu cunay naagtii way aragtay indhaheennaynu ku fiirinaa yani dembiyada way aragtay oo geedkii baa la qurux badnaaday dembigii baa la qurux badnaaday may arkin oo keliya laakiin way damacday jirkii waxay tiri geedku maadaama waxay geed cunto ku macaan weeye geed cunto ku wanaagsan weeye waxaynu kaloo aragtay geedku ay ku fikirtay inuu caqligana u wanaagsan yahay waxaynu isku daynaa magaranaysaa waxbaynu aragnaa waxyaalo aan Ilaahay noogu talagelin baynu eegnaa damac baa inaga gala waxaynu isku daynaa inaynu samayno inaynu Ilaahay ka caqli badnaano waxyaalahaas oo ah damacyada jirka kuwaasoo ah runtii waxa kuwa maanta jannada inaga soo saaray isla maantana bini aadamku from Xaawa iyo aadan ilaa iyo hadda isma bedelin waa sidii uun marka damacyadu jirku runtii waxay markasta lid ku yihiin doonitaanka Ilaahay ama ruuxa Ilaahay ama waxa Ilaahay inaga rabo Bible-ka waxa ku qoran damacyada jirka inay kamid yihiin sinada wasakhnimada dhilanimada sanab caabudada sixirnimada cadowtinimada dirirta masayrka xanaaqa iskala qaybinta iskala ilaaqda bidcinimada xaasidnimada sakhraanimada rabshooyinka waxa ku qoran Bible-ka kuwa waxyaalaha sameeya inaanay dhaxli doonin boqortooyada Ilaahay nolosha weligeeda male ama jannada ma gelayaan waana sidii ku dhacday runtii aadan iyo xaawo maantana runtii ayna cawaaqibkeeni weli ku jirno haddaynu bini aadan nahay kuwa waxa kullida oo laynooga baahan yahay inaynu samayno inaynu ku soconno ruuxa quduuska Bible-ka waxa ku qoran kitaabka Galaatiya cutubka 5 aayadaha 22 ilaa 23 waxa ku qoran laakiin midhaha ruuxa quduuska ahi waa jacaylka farxadda nabadda dulqaadashada roonaanta wanaagga aaminnimada qabownimada iscelinta waxyaalaha caynkaasa sharci ka geeso ma jiro
qofka ilaahay ruuxiisa hogaaminayo oo ruuxa quduuska ku socda ee masiixiga waa in laga arko dabeecadahan maanta waxaynu soo qaadanaynaa haddaba qodobka koowaad midhaha ruuxa quduuska waxaa ugu horeeya jacaylka waa maxay jacaylka midhaha ruuxa quduuska ee laganaga rabo in haddaa qofka masiixiga laga arko jacaylkaasi waxa weeye jacayl kuwa kale la doonaya wanaagga ugu sarreeya waa jacayl qoto dheer oo ah in ma aha midaynu iska yeelyeelayno ma aha waa jacaylka uu ciise masiix inagu yidhi sida aad naftaada u jeceshahay kuwa kalena u jeclow jacaylka noocaasa weeye jacaylka ma aha jacayl afka uuna oo aynu halleluya waa ku jecelahay walaa kan ma aha waxa weeye jacayl aan afka ahayn laakiin ku dhisan ficil haddaan maanta oo dhan ku dhahdo I love you waa ku jecelahay walaalkay baa tahay masiixi baa tahay laakiin markaan kaa tago aan ku xanto aan ku magaranaysaay dadka kugu diro aan been kaa sheego aan xataa ku dibin daabiyeeyo siyaalo kala duwan waxaasi ma aha jacayl waxa weeye jacaylka waxa weeye waa in laga arkaa ficil ahaan marka jacaylka laynaga rabo waxa weeye jacaylka qof kasta la raba wanaag waa jacayl uu ilaahay qalbiyadeena ku shubay rajaduna inama ceebayso maxaa yeelay jacaylka ilaah baa qalbiyadeena ku dhex shumay oo waxaa ku shubay ruuxa quduuska ee layna siiyey waa jacayl ay ah mid isku kalsoon waa jacayl ah inaynu rajo ku qabno ilaahay inaynu rajo ku qabno ilaahay inaynu ku kalsoonnahay ilaahay inuusan waxba haddaynu ilaahay aamino inaynu waxba aynu waayin sidaa daraaddeed aynu u baahnayn dadka kale inaynu xumayno aynu u baahnayn dadka kale inaynu la tartanno ayna u baahnayn dadka kale inaynu ka hor istaagno wanaagga ilaahay iyagana la doonayo waa jacayl ku xidhan jacaylka qotada dheer ee aynu u hayno ilaaha aabbaheena in alla intii ruuxa ilaah hogaamiyo waa caruurta ilaah ayaa waxaa ku qoran bibleka ciise masiix markii la weydiiyey lagu yidhi macallimow qaynuunkee ugu weyn wuxuu ugu jawaabay waa inaad rabbiga ilaahaaga ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo caqligaaga oo dhan sida ugu qoran injiilka matayos cutubka 22aad aayadda 37 jacaylkani kuma salaysna baqdin ya waa jacayl yani ilaahay oo aabbaheena yani waa jacayl ku salaysan yani ilaahay inaynu yani sida aabbaheen bini aadanka aynu u tixgelino uguma tixgelino baqdin laakiin waxaynu ugu tixgelinaa waayo waa aabbaheen waa ilaahayna waa aabbaheen weye ya waa aabbaheen weye marka jacaylka weynaynu u qabno waa jacayl ku salaysan jacaylka aabbaheen inoo qabo ayaynu waa jacayl noocaasa weye jacaylka waa jacayl waxgarashadeena ka weyn ma aha waxaan idin soo sheegay ma aha jacayl aynu inagu iska yeelyeelino biblku wuxuu inoo sheegayaa inaynu mar kasta ogaano oo niyadda ku hayno jacaylka masiixa oo aqoonta dhaafa si ay idinka buuxsanto ilaah buuxsanaantiisa oo dhan ayaa bibleka ku qoran Ephesus cutubka 3 aayadda 19 bibleka waxaa ku qoran laakiinse masiixu wuu inoo dhintay intaynu weli dembiilayaal ahayn oo sidaasaynu ilaah jacaylkiisa inoogu muujiyey waa jacayl maskaxdeena ka weyn waa jacayl ilaahay ina tusay inagoo dembiilayaal bibleka waxaa ku qoran masiixu wuxuu inoo dhintay inagoo weli dembiilayaala ilaahay baa ina doortay ilaahay baa inoo naxariistay
ilaahay baa arkay inaynu ku soconno naar iyo mugdi ma aha waxaynu shaqaysanay ya baybalka waxa ku qoran kumaydin badbaadin waxaad shaqaysateen laakiinse waa nimcada ilaahay waa jacaylka weyn ee ilaahay nimcada saasa inoogu nimceeyey marka jacaylka la inaga rabaa waa jacayl noocaasa waana jacaylkaas ka midhaha ruuxa quduuska ka dhasha haddaba maadaama aynu jacaylkaa soo shaqeexnay sidee baa qofka masiixiga ah jacaylkaa looga arki karaa sidee buu qofka masiixigaay u muujin karaa ficil ahaan jacaylka noocaas oo looga arki karaa waa inaynu jacaylkan ku soconno haddaba ahaada kuwa ku dayda ilaah idinkoo sida carruur la jecel yahay jacayl ku socda siduu masiixuba idin jeclaa inuu nafsadiisa inoogu bixiyey inuu ilaah u ahaado qurbaan iyo allabari oo u ahaado caraf udgoon waxa weeye baybalka waxaa ku koran ma jiro mid jacayl ka weyn inuu mid nafsadiisa u bixiyo saaxiibadii ciise masiix wuxuu yidhi saaxiibaday baa tiin ya ma jiro jacayl qof markuu qof u dhinto waxa weeye jacaylkaas jacayl ka weyn ma jiro marka waxa weeye jacaylkani waxa weeye waa ilaah aynu ku dayano waa jacayl ilaahay aynu ku dayanayno sida ilaahay dadka kale oo dhan u jecel yahay oo uusan u kala saarin ayaa inagana laynoogu ilaahay ku dayda ya ilaahay ku dayda waa wax weyn weeye ilaahay ma gaari karno laakiin we have to haddaynu ruuxa ilaahay ku soconno waxa weeye waxaynu ilaahay awood inoo siinaya karti inoo siinaya isagoo ruuxa quduuska inagu xoogeynaya inaynu isaga ku dayno oo uu waxyaalaha jecel yahayna aynu jeclaano waxyaalaha uu neceb yahayna aynu nebcaano waxyaalaha uu sameeyana aynu samayno marka jacaylka masiixana waa in laga arkaa dabeecadda noocaasa waa inaynu mar kasta jacaylka gashanaano ama xidhanno sidii dharka oo kale qofka masiixiyay hadduuna jacayl lahayn waa sidii qof qaawan ayaa bible ayaa marka waxa weeye aayaddan odhanaysa haddaba sidaa daraaddeed idinku sida kuwa ilaah doortay oo quduusa oo la jecel yahay huwada qalbi leh naxariis iyo roonaan iyo ishoosaysiin iyo qaboobaan iyo dulqaadasho midkiinba midka kale ha u dulqaato oo ha cafiyo haddii mid ka cabanayo midka kale xataa sida rabbiguna idin cafiyey idinkuna sidaas oo kale yeela oo waxyaalahaas oo dhan waxaad ku dulqaadataan ku dul huwataan jacayl kaas oo ah xidhiidhka kaamilnimadiina waxa weeye waa jacayl aynu huwannahay waxa markaad huwan tahay qayb buu kaa yahay maaha jacaylunu maalinna dhigno maalinna soo qaadano waxaas jacayl maaha waxa weeye laba wajiilnimo taas waxaa la yihahdaa laba wajiilnimo laakiinse waxa weeye haddii uu jacaylka ruuxa quduuska ku hogaaminayo waa inaad mar kasta gashan tahay hadduu kaa maqan yahay jacaylkaasi waad qaawan tahay waana in ficiladaada laga arkaa cafintaada ishoosaysiintaada dulqaadashadaada dhisidaada waa in laga arkaa kaasoo kaamilaya xidhiidhka dadka masiixa aad la leedahay kaamilaya laakiin aan burburinayn jacaylkani waa inuu saldhig u noqdaa wax kasta oo aynu samayno wax kasta oo aad samaysaan jacayl ku sameeya ayaa ku qoran bibleka korintoska 1:6-4 haddaad sadaqa bixinayso haddaad dadka bibleka barayso haddaad qof dhiiri gelinayso haddaad magaranaysaa ay hawlo mutadawacnimo aad samaynayso waa inay jacayl ku dhisan yihiin waa inay jacayl ku dhisan yihiin soomaali badan baa markay qurbaha tagaan kaba soo qaad maraykanka iyo meelo badan dad masiixiya ayaa ku soo dhaweeya dad masiixiyiina ayaa caawiya soo dhaweeya iyagoo muslina marka soomaali badan waxaad ka maqlaysaa dambay naga leeyihiin
aha dambay naga leeyihiin laakiin waayo ma waxaan fahansanayn jacaylka dadkan ku jira ee masiixu ku dhaliyay inuusan ahayn jacayl dan laga leeyahay laakiin wax ay huwan yihiin oo qalbiyadooda ku jira oo noloshooda ka muuqda oo automatica waa laakiin inse waxaad arkaysaa Soomaalida hadda maalmahan oo kale waxa ka soo baxay kaba soo qaad qof bay sadaqa siinayaan miskiina ama waxaad arkaysaa waa la isku soo sawirayaa waa la isku waxaynayaa eblaayoka qofkii waxaad arkaysaa in uu qofkan sadaqada ku sheega bixinaya oo aad moodo inuu u yahay advertisement qofkan miskiinka aan dan saasa laga lahayn taasi ma aha jacayl ma aha taasi waxa weeye istus weeye masiixiinta lagama rabo jacayl noocaasa hataa jacaylka aad muujinaysaa in lagaa arko maaha hataa in lagaa arko maaha waa inuu noqdo mid aad u samaynayso adiga kaamida jacaylku waa inuu inaga hor istaagaa oo inaga xakameeyaa inaynu xorriyadda masiixuna siiyey aynu u isticmaalno si xun ama naf jeclaysi ah walaalayaalow waxaa laydinku yeedhay xorriyad laakiin xorriyaddiina jidhka marmarsiiyo ha uga dhigina laakiin midkiinba midka kale jacayl ha ugu adeego galatiya kitaabka galatiya cutubka 5 aayadda 13 xorriyadda masiixu ina siiyey ya qofka masiixiga waxaa la siiyey xorriyad waxaa laga soo xoreeyey shaydaankii waxaa laga soo xoreeyey camaladii jidhka waxaa laga soo xoreeyey qaynuunkii waxaa sameyn haddaad halkaa waxaysid naartaa tegaysaa haddaad halkaa qodax ka qaadid naartaa tegaysaa yani baqdintii iyo argagixii ayaa laga xoreeyey waxaa loo soo xoreeyey inuu ilaahay ugu yeedhay inay carruurtiisi waxaa loo soo xoreeyey in ilaahay uu ugu adeego jacayl laakiinse uu ugu adeegin baqdin iyo argagax ya ciise masiix wuxuu yidhi carruurtii ilaahay baa laydigu yeedhay laakiin laydinkuma yeedhin addoomadii ilaahay addoonku badanaa ma jecla ninka addoonsanaya ya haddaad ilaahay addoon ugu yeedhid addoon baan u ahay dee mar kasta waxa weeye waxaad baqdin iyo ayaad ugu adeegaysaa ya laakiin markaad ilaahay uu carruur aabbaha yahay abuurahaagii yahay ku jecel yahay jacaylkiisa uu naftaada geliyo waxa weeye automatic ilaahay jacayl aad ugu hayso iyo khushuuc aad u hayso ayaad ugu adeegaysaa marka bible-ku wuxuu leeyahay xorriyadda ilaahay idin siiyey masiixiyiinta u isticmaalina burbur kuwa badan oo masiixiyiina ayaa markii jacaylka ilaahay loogu yeedhay ee masiixa ay aqbaleen seeftii lala dul taagnaa laga qaaday waxay u isticmaaleen jacaylkii hab jidhkooda qaar badan baa jidhkoodii burburiyey qaar badan baa magaranaysaa ayay xorriyadda ay haystaan nolosha masiixinimadu ciyaar maaha waa adagta waayo adiga ayaa lagu yidhi mas-uuliyaddii lagu saaray adiga ayaa lagu yidhi bible-ku waa kuu sheegayaa ilaahay ereygiisu ku barayaa ruuxa quduuska buu kugu hogaaminayaa laakiin ilaahay wuxuu yidhi baqdin aniga ha igu caabud marka waxaa weeye kuwa badan oo masiixiyiina ayaan arkay oo dad badan ay garanayaan oo jacaylkii qaadi kari waayey jacaylka intaa leeg waxay u barteen ya wadaad yaroo ku yihahda halkaa haddii waa xaaraan waxaasi waa xaaraan halkaa haddaad tagtid naartaad gelaysa halka qodobo yar yaroo loo dejiyo ay raacaan sida magaranaysaa ay robot oo kale ayaa loo dejiyey laakiinse marka waxaa weeye jacaylkii weynaa ilaahay u qaaday xorriyadda ilaahay ku siiyey masiixa markay waxayeen waxa weeye way iscelin kari waayeen kuwa badan oo masiixiyiinana way ku socdaan oo waa fiican yihiin marka waxa weeye xorriyadda masiixuuna siiyey yaynan u isticmaalin si xun taasna maxay ka jacaylka aynu ilaahay u qabno ee nolosheena ka muuqda
jacaylkaasoo dadkii kalena aynu tusayno ayaa ilaahay haddaad jeceshahay kuma dhacaysid waxyaalahaas oo kale ya kuma dhacaysid waxyaalahaas oo kale marka walaalayaal jacaylka masiixa ee midhaha ruuxa quduuska ka yimaada markuu inagu jiro waxaynu helaynaa farxad waa midhaha labaad ee ka dhasha ruuxa quduuska midhaha ruuxa quduuska waa jacayl farxad marka cashirkeenu nagu xiga waxaynu eegaynaa waxa ay tahay farxadda ka timaada midhaha ruuxa quduuska iyo sida haddaynu masiixiyiin nahay laynooga arki karo innagana waana mahadsantiin walaalayaal sida aad ii dhegeysanayseen ama ii daawanayseen haddana aynu kusoo xidhno duco ilaahow maanta waxaanu kaaga mahadinaynaa waktigan aad noo siisay inaanu ereygaaga wada baranno waxaanu ilaahow kaaga mahadinaynaa inaad na siisay ruuxaaga quduuska oo aad nagu xoogeysay si aanu u garanno doonistaada si aanu ugu soconno doonistaana si ay nooga muuqdaan midhaha ruuxa quduuska waxaanu ilaahu kaa baraynaa inaanu xorriyadda aad nagu siisay masiixa aanan u isticmaalin si keenaysa burbur annaga nafsiyan iyo dadka kaleba waxaan intaa kugu weydiisanayaa magaca sayid ciise masiix aamiin